بسم الله الرحمن الرحيم وصبح نما أربعة كوب يلباتنك بشا جانوري سنة كاللبكن لباتن يلح أو كوبهجن لبدا بشا شعبان سنة كن أفر بقول فرتن يتضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي ولا شد ورركا قضبدا ساكي برامجك أن إذن كوغو هينانا وحا كمدا taliska ciidamada kacaanka islaamiga ah ee Iran oo wacad ku maray in ay goyn doonaan gacanta Trump isla markaasna cadaab ay dhalin doonto haddii la isku dayo in la beegsado hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei iyadoo xiisada gobolka bariga dhexe ay ka sii darayso Mareykanka ayaa markabka weyn ee diyaaradaha dagaalka xambaara ee Abraham Lincoln waxa uu soo diray badda Carabta tani waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo laga cabsi qabo in Mareykanku weeraro ku qaado waddankaasi Iran Ruushka oo duqeymo culus xalay ku qaaday dalkaasi Ukraine waxay sababeen dhimasho koronto la'aan iyo nidaamka kulayliyaha oo gebi ahaanba ka go'ay magaalada caasimadda ee Kiev waaxda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka oo qorsheynaysa in ay yareyso ka qaybgalka ciidankooda qaar ka mid ah howlaha gaashaanbuurta NATO madaxweynaha Israa'iil oo qayladhan ka soo saaray in Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israa'iil loo diiday ka qaybgalka shirarka caalamiga oo ugu dambeeyay kulanka dhaqaalaha ee ka socda magaalada Davos ee dalkaasi Switzerland dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo korna intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa colaadda Ukraine iyo Ruushka iyadoo dagaalka Ukraine iyo Ruushka bisha dambe 4 sano ay buuxsamayso ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo culus Ruushku wuxuu ku qaaday magaalooyin kala duwan oo ku yaala waddankaasi Ukraine waxaana ka mid ah magaalada caasimadda ee Kiev oo duqeymo culus Ruushku ardaadiiqaha habeenimada xalay uu ka dhigay iyadoo lagu soo waramayo in duqeymahan ay sababeen khasaare kala duwan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in duqeymihii xagga cirka ee ugu dambeeyay ee Ruushka uu ku beegsaday xarumaha tamarta ee caasimadda Kiev ay sababeen koronto la'aan ballaaran iyo nidaamka kulayliyaha guryaha qaybo badan oo ka mid ah magaalada xilli uu jiro qabow aad u daran khudbad uu u jeediyey shacabka habeennimadii xalay Zelensky waxa uu sheegay in ka badan 1 milyan oo qoys ay weli koronto la'aan yihiin halka kumanyaal dhismaana ay ka go'an tahay kulayliyaha mas'uuliyiinta Ukraine ayaa caddeeyay in ku dhawaad 5,600 oo dhisme iyo xarunta baarlamaanka laga jaray kulayliyaha iyadoo heer kulkana hoos ugu dhacay ilaa iyo 14 darajo oo minus ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Ukraine Mariana Bitsa ayaa sheegtay in qiyaastii kala bar Kiev ay koronto la'aan tahay iyadoo ku eedeysay Ruushka inuu sii wado burburinta kaabayaasha nolosha intaasi ay ku dartay in tani ay tahay tilaabo si toos ah Ruushka u beegsanayo kaabayaasha nolosha duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa isna sheegay in xaafadaha ku yaala daanta bari ee webiga Dnipro ay wajahayaan biyo la'aan waqti dheer dhinaca kale waaxda wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqday in ay fulisay weerar ballaaran oo ay ku beegsatay warshadaha difaaca ee Ukraine xarumaha tamarta iyo kaabayaasha gaadiidka taasoo ay ku sheegtay jawaab ay ka bixinayso weerar ay ku tilmaamtay kuwa argagixiso oo Ukraine ay ka geysatay gudaha Ruushka weerarkan habeennimadii xalay dhacay ayaa bilowday iyadoo la isticmaalayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana xigay gantaalada nooca blastiga iyadoo dignin ay socotay in ka badan 6 saacadood hal qof ayaa lagu dilay duleedka magaalada Kiev ee caasimadda ah
gaadiidka tareenka dhulka hoostiisa marana waa uu istaagay. wakaaladda tamarta nukleerka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in xarumo badan oo koronto oo muhiim ah badbaadada nukleerkana ay saameyn arrintaasi ku yeelatay. duqa Kiev ayaa xusay in 600 oo kun oo qof in ay barakaceen, kuwaasi oo ka barakacay magaalada Kiev tan iyo markii la bilaabay bartilmaameedsiga kaabayaasha tamarta bishan. duqeymuhu waxay gaareen gobolada Odessa, Rivne iyo Venetsia, halkaasi oo shirkadda tamarta dowladdu ay ku dhawaaqday koronto degdeg ah si loo xalsiliyo nidaamka guud. weeraradan ayaa ku soo beegmaya xilli cadaadis weyn madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saarayo Kiev iyo Moscow si ay u joojiyaan dagaalka, iyadoo Ukraine ay sheegtay in Ruushku uu doonayo in uu wiiqo adkaysiga shacabka waddankaasi Ukraine. hagaag wixii warah ee arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. markaan balaynu eegno qayladhan ka soo yeertay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog oo imika ka qayb galaya shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socda waddanka Switzerland. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa si adag u dhaleeceeyay ka reebista ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu shirarka caalamiga gaar ahaan shirka dhaqaalaha adduunka ee ka socda magaalada Davos ee dalka Switzerland, isagoo ku tilmaamay tilaabadaasi waa sida hadalka u dhigay abaalmarin la siinayo argagixisada. hadalkan ayaa yimid intii Herzog uu ka qayb galayay kulanka Davos, isagoo kulan la yeeshay madaxweynaha golaha guud ee qaramada midoobay Annalena Baerbock. sida ay warisay warbaahinta rasmiga ah ee Israa'iil, Herzog ayaa talaadadii gaaray magaalada Davos si uga qayb galo shirka dhaqaalaha adduunka, kaas oo bilowday maalintii Isniintii isla markaasna soconaya 6 maalmood. madaxweynaha Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in shirka uu ka hadlo, isagoo markaasi sheegaya in uu dhaleecaynayo ka reebista Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant madalaha caalamiga, taasi oo la xiriirta amarka soo qabashada ee ay u jartay maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga bishii November 2024. maxkamaddu waxay Netanyahu iyo Gallant ku eedeysay dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimada oo ka dhacay marinka Gaza. dagaalka Gaza oo bilowday bishii Oktoobar 2023 ayaa sababay dhimashada in ka badan 70,000 oo qof oo reer Falastiina, waxaana la sheegay in sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 171,000 oo qof. dadkaasi intooda badan waa haween iyo caruur. qaramada midoobay waxa ay ku qiyaastay khasaaraha dib u dhiska Gaza ilaa iyo 70 bilyan oo dollar inuu ku kacayo. maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ayaa sidoo kale waxay dhegaysanaysaa dacwadda Koonfur Afrika ay gudbisay, taasi oo la xiriirta xasuuqa marinka Gaza laga geystay. Herzog ayaa ku adkaystay in ka saarista hogaamiyaasha Israa'iil shirarka caalamiga in ay wiiqayso waxa ugu yeeray dadaalada lagu doonayo in lagu xasiliyo bariga dhexe, xilli weli ay sii socdaan dagaallo iyo weeraro ballaaran oo saameyn ku yeelanaya xaaladaha gobolka. waa tahay markan waxaynu eegaynaa NATO qarka waxay u saaran tahay burbur. macnaha gebibi ka laadlaada. waddankii ugu awoodda badnaa NATO waa Mareykanka, uguna ciidanka badnaa, ayaa hadda wuxuu bilaabay in uu dhimo hawlaha gaashaanbuurta NATO in badan oo ka mid ah oo ciidamada Mareykanku ay ku lug lahaayeen. maxaa ugu wacan sababtan? haddaba waxaynu eegaynaa warbixin amurtan la xiriirta oo warbaahinta Mareykanku ay wax ka qortay. waaxda dagaalka ee Mareykanka ee loo yaqaan The Pentagon ayaa qorsheynaysa in ay dhinto ka qaybgalkeeda dhowr qayb oo ka mid ah hawlaha gaashaanbuurta NATO, gaar ahaan hawlaha tala bixinta ee NATO. tilaabadan waxaa loo arkaa calaamad cusub oo muujinaysa dadaalada maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku yaraynayo joogitaanka militariga Mareykanka ee qaaradda Yurub, sida ay sheegeen mas'uuliyiin arrimahan xogogaal u ah. mas'uuliyiinta oo codsaday in magacooda aan la shaacin ayaa sheegay in qorshahani uu saameyn doono qiyaastii 200 oo askari oo Amerikaan ah, isla markaasna uu yarayn doono ka qaybgalka Mareykanka ee ilaa iyo 30 xarumood
oo ah kuwa tababar iyo khibrad wadaaga oo NATO ay ku tababarto ciidamadeeda dhinacyada kala duwan ee la xiriira dagaalka iyo amniga. sida ay sheegeen laba mas'uul oo Amerikaan ah, Pentagonka ayaa waxa ay hoos u dhigi doontaa ka qaybgalka Mareykanka ee hay'adaha rasmiga ee NATO ee howlgallada gaarka ah iyo kuwa sirdoonka. qaar ka mid ah howlahaasi ayaa loogu wareejin doonaa dalal kale oo xubno ka ah isbahaysiga si loo yareeyo saamaynta guud ee isbeddelkan. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa xaqiijiyey in arrintan laga fiirsanayay bilooyinkii lasoo dhaafay, isla markaasna aysan xiriir la lahayn hadallada dhowaan ka soo yeeray Trump ee la xiriira jasiiradda Greenland. afayeen u hadlay NATO ayaa sheegay in wax ka beddelka qaab dhismeedka iyo kala daadsanaanta ciidamada Mareykanka aysan ahayn arrin cusub, isla markaasna NATO ay si dhow ula xiriirayso Washington. si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiin hore iyo kuwa hadda xilal haya ayaa ka digaya in tilaabadan ay hoos u dhigi karto khibradda military ee Mareykanka ee NATO. hagaag xaaladan meel ay ku dambayn doonto lama oga. madaxweynaha Mareykanka hadda ma ahan xitaa muddaxileedkiisii hore dhowr jeer ayuu wuxuu sheegay inuu ka fikirayay xitaa Mareykanku inay iskaga baxaan gaashaanbuurta NATO. haddaba NATO ma mari doontaa dhabbihii ay martay Warsaw? ra'yigaaga qaybta hoose ee fariimaha inoogu reeb adigoo aad iyo aad u mahadsan. waxaan u gudbaynaa gordhow warar xasaasi ah oo arrimaha bariga dhexe la xiriira, gaar ahaan taliska ciidamada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan oo sheegaya in ay goyn doonaan gacanta Trump haddii isku dayo in la beegsado hogaamiyaha sare ee Iiraan, isla markaasna cadaab ay dhalin doonaan haddii lasoo weeraro waddanka Iiraan. Mareykankuna markab hor leh oo dagaal oo diyaaradaha dagaalka xambaara ayuu u soo diray gobolka bariga dhexe. xaaladdu cirka ayay ku shareeran tahay. wari waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Arbacada toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag xiisadda Iiraan iyo Mareykanka cirka ayay ku shareeran tahay. saacad kasta waxaa la filan karaa dagaal inuu qarxo. labada dhinac hadallo adag oo xanaf leh ayay hawada isu marinayaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in meesha laga saari doono hogaamiyaha Iiraan Ayatollahi Ali Khamenei. Iiraan waxay ku tilmaamtay arrintan inay tahay qadkii casa oo laga gudbay iyo dagaal la iclaamiyey. haddii wax la yeelana hogaamiyaha sarena Iiraan waxay leedahay gacanta Trump baa goynayna. arrintu marka meel adag maraysa. haddaba aynu eegno war amuuraha la xiriira oo ka soo yeeray mas'uul sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga. afayeenka taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee Iiraan, General Abdulfazil Shakarji, ayaa xalay ku tilmaamay hanjabaadaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan weerar military oo Iiraan lagu qaado iyo baaqyada la xiriira beddelka hoggaanka dalkaasi inay yihiin buuq iyo hadallo aan mudnayn in fiiro loo yeesho. hadalkan ayaa yimid kadib markii Trump uu ku hanjabay in hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Khamenei meesha laga saaro, isla markaasna uu muujiyey suurtagalnimada faragelin military oo Mareykanku uu ku sameeyo Iiraan, taas oo ku sheegay inay tahay taageero loo fidinayo dibadbaxayaasha. Shakarji ayaa sheegay in Trump si buuxda u fahamsan yahay in haddii gacan gardarro ah loola tago hogaamiyaha Iiraan, in ciidanka Iiraan aysan keliya jarin gacantaasi, balse sidoo kale ay shidi doonaan dab caalami ah oo ka dhan ah ciddii weerarka soo qaaday. waxaa intaasi ay ku dareen ciidamadu in cadowgu uu wado dagaal nafsiya iyo mid maskaxeed, waxaana uu ballan qaaday afayeenka taliska guud ee ciidamada Iiraan in haddii Iiraan lasoo weeraro tilaabo adag ay ka qaadi doonaan cid kasta oo gardarradaasi ku soo fidaysa dhankooda. sida ay warisay wakaaladda wararka Tasniim ee laga leeyahay Iiraan, Shakarji ayaa xusay in arrintan horey loo caddeeyey, gaar ahaan dagaalkii 12 maalmood socday ee dhex maray Iiraan iyo Israa'iil oo Mareykanku uu taageerayo. dagaalkaasi oo loo yaqaan dagaalkii 12 maalmood
ayaa waxa uu sheegay afayeenku in cadowgu isku dayay in uu qalqal geliyo xaaladaha gudaha ee Iiraan intii uu socday weerarka military ee markaas ay hogaaminayeen sida uu yiri Mareykanka iyo Israa'iil laakiin waxa uu sheegay in ay ka guuleysteen amuurahaasi geesta kale ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada Iiraan ayaa isna adkeeyay in qatarta ugu weyn ee maanta aysan ahayn mid military balse ay tahay dagaal maskaxeed iyo mid fikir kaas oo ujeedadiisu ay tahay xakamaynta maskaxda dadka wuxuu sheegay in haddii dhul la qabsado dib loo soo ceshan karo balse haddii maskaxda la qabsado ay adkaanayso ama mararka qaar ay noqonayso mid aan suurtagal ahayn in laga soo kabto hadalladan ayaa imaanaya xilli Trump uu hanjabaad ku bixiyay faragelin uu ku sameeyo gudaha Iiraan intii lagu guda jiray dibadbaxyadii ka dhacay dalkaasi ee bilowday bishii December 28keedii dhinaca kale madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa isna wuxuu sheegay in weerar kasta oo lagu qaado Ali Khamenei uu la macno yahay ku dhawaaqid dagaal buuxda oo kana shicibka Iiraan way haddaba xaaladdu halkaas markay marayso Trumpna leeyahay imika ku degdegi maayo dagaal haddana wuxuu soo wadaa Mareykanku ciidamo iyo agab dagaal inuu soo buux dhaafiyo gobolka bariga dhexe haddaba maxaa ugu dambeeya wakaaladda wararka ee AP war ay qorayso waxaa la sheegayaa Mareykanku in markabka weyn ee diyaaradaha dagaalka xambaara ee lagu magacaabo Abraham Lincoln inuu ka soo gudbay marin biyoodka Malacca ee isku xira badda koonfurta Shiinaha iyo badweynta Hindiya isagoo ku sii jeeda waqooyiga badda Carabta sida lagu sheegay warbixinta markabkan ayaa la filayaa in uu gaaro bariga dhexe 72 saacadood gudahood warbixintu waxay taasi ku dartay in markabkan uu damiyay nidaamka loo yaqaano AIS oo ah nidaam caadi ahaan loo adeegsado amniga hawlgallada badda xilligii uu galayay gacanka Bengal iyo badweynta Hindiya wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sabtidii waxa uu ka soo xigtay mas'uuliyiin Mareykan ah oo sheegaya in markabka diyaaradaha xabaara ee Abraham Lincoln iyo maraakiib kale oo la socda ay ku sii gurguuranayaan badda koonfurta Shiinaha ayna ku sii jeedaan bariga dhexe iyagoo la filayo inay halkaasi gaaraan qiyaastii 7 gudihiisa arrimahani ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hanjabaad uu ku bixiyay inuu qaadi doono weerar military oo ka dhan ah Iiraan taas oo jawaab u ah sida xukuumadda Tehran ay ula macaamishay dibadbaxayaasha dadweynaha ee dhowaan barnaamijyada ka dhigay dalkaasi Iiraan dibadbaxyada ayaa ka dhashay carab ballaaran oo dadweynuhu ay ka muujiyeen hoos u dhaca xaaladaha nololeed ee Iiraan laakiin mas'uuliyiinta waddanka Iiraan ayaa waxa ay sheegayaan in dibadbaxyadan ay ka dambayso mu'amarad ay maleegeen Israa'iil iyo Mareykanka isla markaasna ujeedadu ay tahay in waddankaasi qalqal iyo fawdo laga abuuro waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo